بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal waa walaashii nadiif qaran waa barnaamijkii wacyigelinta dhalinyarada ee nadiif show haddaad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa youtube-kayga subscribe-ka iyo like-ta igala bakhaylin iyo share-ka iyo commentiga waxaan leeyahay soo dhawaada. maanta waxaan ka hadlayaa arrin yar oo ah jalaska waxa la dhaho cod baan hayaa iga soo diray Nairobi gabdho aan macrifnahay saaxiibanahay oo meelaha iska baranay website-kaas ay soo direen waa in la wadaagi doonaa laakiin intaan in la wadaagin waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo. horta jalasku muxuu yahay? jalas waxa la dhahaa xasadka Soomaali wax lagu dhaho ma aqaan jalas la waqaana. jalas waxa la dhahaa qofka ka xun waxa aad tahay ama meesha aad gaartay hadaan macnaheeyo af Soomaaliga. qofka ka xun waxa aad gaartay meesha aad gaartay waxa Ilaahay ku siiyay wax aad qabsatay haddaad wax baratay waxbarashada heerka ka gaartay haddaad maaragtay wax baratay haddii maaragtay xoolo ah heshay dadkaas baa jalas la dhahaa. qofka jalaska jalasku marka intee nooc waay rag iyo dumar ma leeyahay meeqo u kala baxaa waxaas baan ka hadli doonaa maanta. laakiin waxaan ka hadlayaa xagga dumarka jalaska waxa uu keena iyo waxa uu yahay iyo sababaha qofka markuu arko qof jalaska uu ka noqonayo iyo dadka jalaska iska noqda. intaasaan rabaa inaan wax yar ka dhaho ka dambana aan dhageysiiyo arrin jalaskaas ku saabsan oo dhalinyaro dhex martay. waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad. aad iyo aad baan idin jeclahay followerskayga. waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa intaan barnaamijka bilaabin dadka igu xiran oo aad iyo aad igu xiran oo markaan saa wax soo geliyo hore ka soo comment gareeya sida gabdho magacyadooda aan hadda rabin inaan sheego laakiin maalin aan sheegi doono share gareeya commentiga soo qora markiiba maaragta like-ta ii saara horena ii la socday anigoo xataa dadkay yar yahay soo raacay. aad iyo aad baan dadka uga hambalyeynaya. waxaan halkan uga hambalyeynayaa reer Murtimaal familigaas quruxda badan oo iyaguna aad qayb weyn uga qaata barnaamijkayga oo dadkii maaragtay soo bandhigay ahaa iyaguna waxaan leeyahay Allah in barakeeyo dadkaas abaalna waan inii hayaa. maalin ay noqotana kulli bini aadan baan ahay haddaanan dhimanin waa inii abaal gudi doonaa insha Allah. kanaanba intaan inii soo fariisto idin kaliya aan waxaan ka sheegay marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dadkaas. maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijka la dhaho jalaska. horta jalasku rag iyo dumarba wuu leeyahay. dumarkana wuu ka yimaadaa raggana wuu ka yimaadaa laakiin yuu ku badan yahay wuxuu ku badan yahay dumarku ku badan yahay yar iyo waaweyn ma leeyahay maya qof kasta wuu leeyahay. dhalinyaradu galaa teenagerku galaa dadka waaweynna wuu galaa. waxa weeye waa qalbi madow oo xasadnimo ay ka buuxdo waay jalasku. waxa keena qofka waxayna ku badan yahay dadka saaxiibada ah labada qof ee saaxiibka ah ama ha ahaadaan dad wax isla barta oo iskool isla dhigta oo dhalinyaro isla ah oo saaxiibyo ah ilaa dadku markay isku shaqo yihiin ama isku meel joogaan waa saaxiibku ma aha midka aad isku dhowdihiin kaliya. saaxiib waxaad tihiin wixii aad isku dantihiin wixii aad meel ka wada shaqaysaan wixii arrin isu keento wixii fikrad aad wadaagtaan waxaasoo dhan waa saaxiib. hadda idinkii anigu saaxiib baynuna because waxa isu keenaya waxa aan wado dad baa ku faraxsan dadna way diidan yihiin dadna way ka xun yihiinba inaan hadlo ama aan meel gaaro ama aan wax noqdo way dhibsanayaan. marka dadka wax kasta oo isu keena bas isku raacaan ba saaxiib la dhahaa. laakiin arrinta ugu weyn oo maaragtay jalasnimada keenta waa qofka jalaska noqda ama qofka xaasidka ahi waa qof isaga kaliya ogol inuu wax noqdo dadka kale oo dhanna aan rabin inay hore u socdaan. haddaad isla wadaan wax kasta oo aad ku wada jirtaan haddaad shaqo isla haysaan haddaa wax isla wadaan waa qof xasadaadi oo aan ogolayn isaga ma ogeyn in qof kale uu wax noqdo. waan hargabsanahay maanta xoogaa madaxa iyara xanuunaya marka hargab xun baa ahaaya hargab xunaa jira codkaygana waad ka garanaysiin clear maaha xoogaa waxaa ku jira xalay cabur baan la seexan waaye marka hargab baa ahaaya isoo duceeya insha Allah. raallina ahaada hadda codkayga xoogaa qabqab ay ku jirto hargab baa ahaaya. marka xasadku waxa weeye waa qof kuu quurila waxa aad tahay ama waxa aad gaartay xataa haddaad saaxiib tihiin saaxiibkaa waxaa laga yaabaa in Ilaahay adiga wax ku siiyo ama adiga aqoon ha ku siiyo ama cilmi diimid ha ku siiyo ama mid adduunyo ha ku siiyo ama ilmo ha ku siiyo ama guri wanaagsan iyo nin baariya iyo gabar fiican ha ku siiyo waxay doontaba ha ku noqoto waa qof ku quurila nolosha aad ku jirto
waana arinta ugu xun oo ku badan bulshadana way ku badan tahay laakiin waa arinta aan inta badan dadku awareness ka ahayn oo la ogeyn oo lagu baraarugsanayn oo qof aad iska jireen kaaga imaata sababta ah cadowgu waa labo qof waa qof aad iska jirayso oo og tahay inuu cadow yahay inuu xasad yahay inuu maaragta dhib badan yahay oo aad iska ilaalinayso aan waxba ku darsanaynin iska ilaalinayso kaas waxa ka soo gaara waa wax yar haday wax ka soo gaaraana wax ku difeetaynaya ma sababta wad ogtahay qofkaas inuu yahay qof xun oo xumaanta lagu yaqaan oo dhib badan oo maaragta wixii ummadda uu ku hayay wax kamid ah adigana ka soo gaareen kaas wax dhib ku uma hay laakiin waxa ugu xun xasadka ama ugu xun jalasnimada qof aadan filaynin oo ku dhow oo maaragta dadka kala sarka kugu ah ama dadka aad isku dhowdihiin ah oo haddana xasad ah kaas waay midka ku dila waliba gabdhahu ku badan yahay gabar baa waxa dhacaysaa nin fiican baa ilaahay siinaya ilmo fiican baa la siinaya guri fiican baa la siinaya mid kale oo gabar ah baa ka xumaanaysa oo laga yaabo inay xataa reer leedahay meesha ay ku fakari lahayd reerkeeda inay iyaduna sida gabadhaas u qurux badan inay qurux badnayso inay la tartanto oo dhinaca wanaaga ay kula tartanto intay samayn lahayd waxay isku dayaysaa inay reerkaas gabadhaas inay xumayso gabadhaas inay u hesho meel goda ay ku rido gabadha inay u hesho wax ceeba oo maaragtay ay ku cambaarayso intaasay raadinaysaa ma raadinayso inay tartan la gasho xataa hadday wanaag ku aragto wanaaga iyaduna raadsato haddii nin fiicana la siiyo waay gabadha ninkeeda u fiicnaaday ilaa bini aadamku labada qof iyagaa wanaaga iska keensada qofkan hadduu ku wanaajiyo qasab waad wanaajinaysaa hadduu si kasta u fiican yahay laakiin adigu aad tahay qof xun qofkan wanaagiisa ma helaysid mana arkaysid marka ma wax badan isma weydiinayaan wax badanna ma raad raacayaan ma dhahayaan maxay tahay sababto waxay bilaabaan inay xasado qof baad wax isla wadaan ama wax iskula jirtaan qofkaas wuxuu jeclaysanaa isa kaliya haddaad wax isla sameynayseen ama meel wada aadi jirteen ama wax isla qaban jirteen wuxuu jeclaanaa wax kasta inuu kaligiis u dhunto ama kaligiis la sheego ama kaligiis uu meel ka muuqdo ama wax kasta oo meesha ka socday oo isla wadeen inuu kaligiis raadiyo oo si kaligiis loo arko oo kaligiis uu noqdo kan sheegan kan la wado kan qofkaas waa xasad calooshu ka jiran yahay waana arinta ugu xun waa meel ma gaara marka qofka jalaska ama qofka xaasidka maya meel ma gaaro laakiin maalmuu socdaa meel ma gaaro laakiin wax kasto isku dayana way banjartaa waxa laga yaabaa qof maantay ay wax isla bilaabeen inuu ka hormaro oo ka magac dheeraado oo ilaahay ka xoolo bato oo ka wanaagsanaado oo bulshadu ka jeclaato maxaa keenaya qalbiga waxa daalacda Allah laakiin afka iyo ficilka waxa daalacda bini aadam soo bini aadan iyo Allah yaa xoog badan marka Allah waa xoog badan soo Allah muxuu sameeyay marka inuu ummadda qalbigooda geliyo raxmad u geliyo qofka wanaaga because qofkaas wanaagaas ku jira ba ilaahay raxmad u gelinaya ummadda kii wax walba sameynaya meel walba taagnaa meel walba rabay inuu kaligiis ka muuqdana wuxuu alla ku sameeynaya inuu banjaro waxba u dhaqaaqi waayeen meel kasto isku dayo xataa xogaa socoto uu dhexda ka jabo because xasadnimadu waa waxa ugu xun waana waxyaabaha ugu khatarsan oo bini aadanka ay ku dhaqaaqaan waana wax Soomaalida ku badan aad bu Soomaalida ugu badan yahay wax badan markaan soo fikiray sameeyay dad badan oo aan wax isku darsana arkay dad badan oo aan saaxiibanahay arkay dad badan oo saaxiiba arkay wax badan waxaan ogaaday inay Soomaalida waliba especially Soomaalida inuu ku badan yahay waxa la dhaho xasadka iyo jalaska dhinac walbana uu kaga jiro dhalinyaradu kaga jira waalidku ku jira xagga businessku kaga jira xagga shaqada iyo wixii isku darsadaan buu kaga jira dhinac walba kaga jira sidee marka looga hortagi karaa sidee ku garan kartaa qofka jalaska ah ee adiga xaasidka kugu ah horta waa labaan u kala qaaday oo qofna waa qofkaas bulshaduna taqaan adiguna aad iska ilaalinaysa xaasidnimadiisa wax yar ka soo gaaraan laakiin kan ku dagi kara ama gabadha shirqoosha oo gabadha boholka ku ridi kartaa waa gabadha kaloosarka ay la tahay ama saaxiibka la tahay ama ay isleedahay wallahi tanu saaxiib baatiin oo wax isku darsadaan ama wax isla wadaagaan ama isku shaqaha noqdaan ama waxay fikrad hay isu keensadaan ama shaqaha ka dhaxayso ama ganacsi ha wada wadaagaan labada qof ama waxa wada bartaan kuwaas waa kuwa khatarta horta gala gabar kalena shirqoosho oo ay iska jireen ilaa qof aadan iska jireen meel xun uu ku dhigi karaa haddaadan ahayn qof wax kasta ka fikira wax kasta
qofka ficilkiisa garan kara oo qofka waxa weeye aad la socoto waad garan kartaa qofka markaa xoogaa la socota ama xoogaa aad isku shaqo noqotaan waad garanaysaa qofkan inuu qof xasada yahay oo wixiisu aanay hore u socon iyo inuu qof wanaagsan yahay waad kala garanay marka haddaa adiga feejignaan kugu jirto qofkiina adoon xumaynayn laakiin adigu istaxadaraysa adigu is ilaalinaysa adigu qofkan u arkay inuu qofkan xoogaa sida aad moodaysa aanu ahayn marka adoon ku xadgudbaynin ilaa isaga xumaantu ka timaada aad sugayso qofkaas wuu ka badbaadaa laakiin dadka aan waxba isdhiiba hal mari isdhiiba oo qof kale isu dhiiba waxa weeye inta badan dhibkuu ku dhacaa marka horta gabdhaha waxaan dhihi lahaa haddaad qof wax ku darsato ama haddii qof saaxiib aad tihiin ama haddii qof wax idinka dhexeeyo horta isdhiibiddan aad 100% qofka isa siinaysiin iska daaya because dhib bay kuu keeni hadhow baad isku dhacaysiin wax badan baad wadaagteen wax badan baa idinka dhexeeyey wax badan baad isu sheegteen hadhow midda kale ku xumayni marka because waad isdhiibtay waa inaad kantaroolaato waa inaad is ilaaliso waa inaad tahay qof dhowrsan oo hadal ka dhadhicin waa inaad saaxiibta xataa aadan wax walba la sheer garaynin because you never know wax ka imaan doona ma taqaanid waxa ay noqon doonto 3 sano 4 sano 5 sano kuwa saaxiibo ah waxa arkaysaa meesha u xumaa kala marayo 3 sano 5 sano kuwa saaxiibo ah arkaysaa guriga iska duminay because jalasnimo darteed see iga nin fiicnaatay see iga guri fiicnaatay see iga ilmo fiicnaatay see iga ganacsi fiicnaatay see iga cod dheeraatay see iga waxbarasho fiicnaatay wax badan bay soo gashaa marka taas iska ilaaliya gabadha markaad meelaha aadaysiina be careful gabdhaha waliba waxaan leeyahay hadda teenagerada ah say wallahi daaya inta ku koray waxaan leeyahay taxadar badan hayni ku jiro sababta ay idinku ma fahmi kartaan dadkii hore ama dadkii Soomaaliya ka yimi ma fahmi kartaan dhaqanka halkana waxa way daacad buu u badan yahay ilmaha halkan beenta ma yaqaanaan ilmaha halkan ma yaqaanaan qaa'inimada iyo istawmarinta laakiin waxa keena inay iyagu xadaan waxa laga yaabaa in fikrad kale oo dad waaweyn u soo dhiibeen oo cunuga ku dhaqaaqo oo kii kale ku dabo marka weligaa waxaan indhihi lahaa inaad indhihiinu ay furan yihiin waxaan in la sheer garayn rabaa marka oo arrinta maanta u soo qaatay arrin ka dhacday Nairobi ka dhacday oo gabdho teenager ah ay isku sameeyeen baan rabaa in la wadaago la ii soo diro codkeedana aan amar u haysto inaan sii daayo marka waxaan idin sheegayaa marka ciyaalo ama dhalinyaro ama hooyo ama gabaray ama sidaadba waxa doontaba aaw inaad weligaa qofka aad la socoto aad 100% isu dhiibin inaad leedahay wax kuu gaar ah oo qofkan na aadan adigu xumaynin wanaagiisa intiisa wanaagsan ka qaado intiisa sharka iyo xumaantiisana isaga u daa isaga haysataay isaga iska leh adiga marka inay ku soo gaarin ka taxadar ilaa kaa kaleeto aan soo sheegay oo xasadka ah oo aad taqaano waa iska ilaalin wax kastoo kaa soo gaarana dee waa wax ummadda dhan gaareen bay kula tahay marka kaa dhib ha u arkin ha u jawaabin ha la tirsanin ha soo saarin ha wadwadin si uu meel u maaragta wixiiba ugu socdaan kaas isaga waaba ka adagta laakiin kan kalowsarka aad tihiin ama aad saaxiibka tihiin ama wax wada barataan ama aad wada joogtaan ama aad isugu xirantiin ganacsi idinka dhexeeya ama wax kale idinka dhexeeyaan isaga waxa weeye weligaa ad waxa is ilaalisaa inuu isagu xumaantu isaga xagiisa ka timaado ma ogiye adiga inaad aadan xumaynin midda kale xumaantiisa uu soo watana inayan ku saamaynin oo aad qof ka feejigan oo ka digtoon oo maaragtay xumaantaas hadhow isagu ha ku banjaro laakiin adiga aad ka badbaado inay noqoto ilaahay baa wax badbaadiyay ilaahayna aad tala saarataan oo dadka aad maaragtay ogaataan arrin waxaa jirta marka Nairobi ka dhacda walaalayaal arrintaasu gabdho ilmo iskool dhiganayay baa ilmihii gabar ka midihii waxay gashay meel khatar ah oo maaragtay lambar hay ah ay ku baastay gabdhihii kale way jalasay ka noqdeen way u quuri waayeen way qaadan waayeen hadda ogow gabdhahaas kale oo jalaska noqonaya xataa ma dhicin iyaga nafkooda way baaseen laakiin buundada iyada ay hayso iyo meesha ay gaartay bay iyagu aan gaarin tii bay ka xumaadeen waana ilmo dugsi isla dhiganayo oo is yaqaanay oo isla socday maxay sameeyeen marka wixii ay sameeyeen iyo sidii wax u dhaceen iyo waalidku sidii loo soo gaarsiiyay intaba waxaad ka dhageysan doontaan meeshan aad ka dhageysan doontaan ka dambena wixii kale aad ku daraysaan waxaan codsanayaa inaad commentiga kusoo qortaan haddaad jeclaateen barnaamijkan jalaska
inaan soo badino oo barnaamijyo badan kasoo sameeyo oo arrimo badan oo kale oo aan hayo arrimaha ku saabsan oo gabdho ku dhaceen wiilal ku dhaceen rag baan hayaa xataa arrin ku dhacday aad jeclaysatay inaan in la wadaago waan soo gudbinaya laakiin anigu waxaan ahay dabeecad ahaan nadiif qaran ahaan barnaamijka waxbaan ka bilaabaa haddaan arko dadku inay jeclaystaan baan wadaa sababta ma rabo waxa aanan enerjigayga inaan ku bixiyo waqtigayga aan geliyo waxaan dadkii rabin ilaa saacad baan ku xisaabtamaya waqti baan ku xisaabtamaya daqiiqadaa yar ee aan haysto meeshaan wax macno la gelin lahaa inaan idinkii wax la wadaago ummadayda wuxuu faa'iideeyo dhalinyaradii la hadlo intaas bes baan aan ugala jeedaa marka haddii wixii aan soo gudbiyo aanay ku soconayn ma jecli inaan maar kasta ku celceliyo oo sii wado haddaan marka ka hesheen arrimahan jalaska inaan soo badiyo oo weliba guryaha iyo sababaha gabdhuhu isaga dumiyaan sababaha nimanka nafkoodu ay guryaha iyaga nafkoodu problemka uga qabsado waxaas dhan haddaa rabtiin commentigaa soo qoraysiin haddaad tala hayso sida hadda talooyin badan ama dad dhib ku dhacay oo aan haayo taleefkayga ku jira haddaad hayso waa soo gudbinee markaa waa soo laakiin maxay ku xiran tahay sida u dhagaysataan sida u sheer garaysaan sida aad isu gaarsiisaan haddaan arko wixii in la xiisaynayo dadku markay wax xiisaynayaan hadda marka qabiilka laga hadlayo ama dadka la isku diraayo waad garanaysaa in la jecel yahay waxaas because waa la sheer garaynaa comment badan baa laga qoraa wixii waa la buunbuuninaa qofkii marka maxay tusaysaa inuu aad u wadwado intii xumayd oo aad u wadwado taas baa marka aan ku qiyaasaa haddaan marka jeceshiin joyska idinka iskale waad iisoo qoraysiin commentigaa kusoo qoraysiin barnaamijkaa sheer garaynaysiin commentiga iyo like-tii sheerkana waa saaraysiin haddaad horey igu cusbayd like-taad saari commentigaa soo qoray haddaad hadda igu cusub tahay subscribe-ka saar gambaleelka furo like-ta saar sii sheer garee si barnaamijyadayda aad u hesho markasta waxa weeye waa xayeysiinta meeshayda ilaa dadku xoolo ay ku bixiyaan inay wax loo xayeysiiyo anigu laakiin anaa isu xayeysiinaya gabar walaashiinana waanahay barnaamijkaanuna waa barnaamijkii dhalinyarada wacyigelinta dhalinyarada ee nadiifa show oo maanta ku salaysan muxuu yahay jalaska wax la dhaho maxaase keena marka dhowr qaybood buu leeyahay maalin walba qaybaan soo qaadanaynaa balse maantay qaybtaas baan in la wadaagayaa codkiina waa kan dhegeysi wacan عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وان إذن سلامي ورك على سوحيسين عن إذن شاقة كدوية يحيب يري إمان ماشي وجيداي يا انت كلا وكل ما مقلد دونتينه waxaan la yaabaa ka kowdaha gabadhaan hadlaysa Nairobi joogta gabdha isoo diran Nairobi joogan oo ila soo wadaagay aan dugsiga ma naga fogo waa just jidkun baa dhinaca kale loo goyne ya macalinka isoo wacay wuxuu igu yiri hadhow ma imaan kartaa 5 saac meelaha sayto markaasaan maxaa dhacay markaasuu igu yiri maya gabar oo wax ku dhaceen yaa rabtaa inay waalidkoodan u sheegto siiba maamooyinka marka haddaad imaan kartid 5 saac noo imo hayaan dheh bas naag shaqaale maanta ma joogina Sunday bay ahayd qadada iska boobsi guriga iska hagaaji waan aaday 11 markay ahayd iyadaa soo yara dahday 11:20 meelahaas ay imaatay bas anagoo xoogaa adiga waxaan gabadhii gabadheeda dib ku dhacay oo gabdhaha loo yiraahdo si gaarsiya qofka rabtina la sii sheegareeya marka I have permission inaan idin sheego walaalo shinow gabadheeda hadda form 4 bogtay oo ilmihii aad u baaseen ahayd maasha Allah ilmaha gabadheeda Nairobi ku dhasheen ay ku koreen laakiin iyadoo waa reer Mandera asal ahaan waana garre marka maxay ahayd gabadheedii aad u baastay hadda gabdhihii kale oo iskuulka ahaayeen isku klaaska ahaayeen yaa jilaaska noqdeen adduunku waa imtixaan baba yaabo wallahi billahi Soomaalida hadda garro kale waa Soomaaliya say Soomaalida ay u dhaqanayaan iyo jilaaskan iyo waxan iyo dibadda ma la yaabaneene hadda Afrikana way warka wuu yaalaa marka siiba dadka gabdhaha qabo yaan u sheegayaa wax aamintiin iyo wax saaxiib la dhaho iyo wax kale midna ay jirin gabadhan masaakiinta abaayo way baastay say hooyadeedna leedahay aaday u baastay marka gabdhihii kale isku klaaska ahaayeen oo iyada meesha iyada hesha aan helin inkastoo ayba dhicin bay tiri ayakoo dhan laakiin iyada ugu point badneed yaa jilaas ka noqdeen okay aroos baa marka dhacay tiri markii imtixaanka soo baxay kadib aroos familiga ah oo reeraha un adiga garahooda ayaa dhacay marka waxaa la yiri arooski aan aadna ilaan awal busy lahaay dadkan way akhrisanayeen way daaleen oo hadda hadii imtixaankina hadii la dhameeyana baasay arooski baa waxay tiri la isla aaday
arooski markii la aadaba ilaa naagahan kaloo dhan gabadhan ay jilaas ka yihiin waxay rabaan un sifay gabadhaas wax ugu sameeyaan ama cunto wax ugu daraan wax unba adig kolley lagu fikira arooskii baa la tegay gabdho yaryaroo dee waad iska garanay qof walba uu soo maray gurub iyo waa la iska sheekeystay bas laba is ogaayeen waxaa la yidhi naayaha naagta markii cuntada iyo waxaa la keeno cabitaanka yaan wax ugu daraynaa wax ay wateen I don't know wuxuu ahaa daawo un adig kolley wax ku jiro oo gabadhii ay nooc kale noqon doonto oo ay waxba garanaynin oo waxaasaa lagu sameeyey gabadhii bas cuntadii iyo wixii markii la keenay cabitaankii gabadhii waxaa la yiri allah iblaahay kaala musqushi ii raac labadii is ogaayeen mid baa gabadhii wadday cabitaankeedii yaa wax shuluq lagu siiyaa la yiri lagu daray ma wax powder aha ma kaniin baa ma garanay laakiin hooyadeed waxayna tiri un gabadhii cabitaankii baa wax loogu daray bas abaahela musqushi hadday kasoo noqotaba cuntadii cuntaba cabitaanka isku dhufo markii cabitaanka wax lagu daraya marka ilaahay amarkiis gabar oo miis kala fadhido oo garahooda un ayaa arkaysa markaas intay u imaatay ku tiri cabitaankan waxaad ku daraysa maxaa waaye markaasay ku tiri none of your business shaqadaada ma aha shaqadayda ma aha miya ahaa way iska aamusta laakiin way il bay ku fiirinaysa gabadhii masquushay kasoo noqotay waa la qoqoslay sawirray waxbaa la iska qaadqaaday waa cabitaankii bay gabadhii cabtay markay cabtay gabadhii tan way fiirinaysaa way ku maqanta dad waxaa jira fiiro dheer ma ogtahay gabadhi kale miiska kala fadhida way fiirinaysaa and then xoogaa kadib gabadhi nooc kale noqotay way sarqaantay ahaan adi intayn joogaa iyo hadal iyo waxaasay bilowday wiilalaa loo ballamiyey gaari kalaa la ballamiyey gabadhaan inay wiilashaa faraxumeeyaan guri kale la geysto waxaasoo dhan baa lasoo baangeeyey subxaan allah yacni waa la yaabay gabadhii baa xirsifar u noqon doontaa arkaysoo dhehaysa cabitaanka waxaad ku daraysa maxaa waaye ma garanayso gabadha hooyadeed iyo waxaa laakiin inay un family yihiin oo gabdhahanayto gabdha yaryar yihiin unbay aragto un bas so clipka uu dheeraaday ku kalan soo duubi marka waxay tiri cabitaan gabadha markay cabtay ay aragtay inay nooc kala noqotay yaa waxay tiri gabar kaloo ag fadhiday u sheegtay waxay tiri gabadhahanayto wax bay sameeyeen gabadhan masqusha loo diray mid baa tiri iraac cabitaankeedana wax baa lagu daray gabadhii hadda isma ogo wataasayto gaarina bannaankuu soo istaagay gabadhan amii wax kale dhib kale uu jiraa labadii maama maasha allah dadku isku mid ma ahe yaa boodeen haddee nimana tuug hooyooyinka qurbahayan way daawan lahaayeen ruux ma artay gaarigii ay sawireen mobilkoodii ay wateen gaarigii sawir dhag lagu siiyey maxaa noo sawiraysan maxaa gaarigan u sawiray ayagii baa ma artay markaasay dheen gabadhan naagahan wax bay ku sameeyeen inay okay ahaanna waan aragnaa adinkana meeshaa soo istaagteen soo idinka iyo naagahan kale is og soo ma aha haddaaba baliis waxaynaaba gabadhan annaga ma garanayna laakiin family un waay arooskan waxay u imaato oo qof aan meel fog ka imaanin naakuwii big bay dheheen gaarigii wate laakiin sawirka gaarigii gabdhihii way hayaan naagihii kale waxay anaga waxmaana siinin iyada cabitaankeeda waaye anaga kan waa anaaba arkayay tir gabadhi kaale idila bastoolad ma haysatiin igu dhufta anaaba sheegi calaa taxaal arooskii wuxuu dhammaanaya one o'clock waa xaafadaha dhexdooda south sea dhexdeeda ani laakiin ma ogeyn hadii aroos hadii family u ahayn maba ogaan kartide waxay tiri gabadhii telefoonkeedii hooyadeed soo wacday maba la qabanayo wuu dhacaya markii dambe mid ka qabatay xedhada eedo heblaayo ma garanayn waxa ku dhacay waa mantagaysaa way xanuunsan tahay saan waaye islaantii arooska meeshuu ahaana way ogeeda hirrik hadday soo orodabo gabadheedii waaba tambo waaba nooc kalabo isbitaalkaa la geeyey waa la baare waa laga mantajsiiyey gabadhii waxaa laga soo helay in daawo la siiyey cabitaankeeda wax loogu daray cabitaankii wixii hadee waaba la tuuro alaabtii meelka hoolka waa la aruuno qashinkaa lagu daray ma ogtahay marka yacni bani aadanka lama aamini karo iska ilaaliya gabdhihiina iyo waxaan iyo wiilba hataa party baa la aadi haddii la dhaho cabitaankaada gacanta un ku wada dheh haddaad masquul galaysid iyo haddaad meelaad aadaysidba idinka idintaa laa dhaha walaalay laisma aaminaayo gabadhaasaa waxaa nooga sheekaysa maanta soo idinkaa idinla sheegareenaaye dadka gabdhaha haysto siiba hala is ilaaliyo party baa la aadaya aroos baa la aadaya intaa la aadi naagaha gabdhaha wax ka jilaasan wax ka xasidsan adduunka maba jiraan ku dhihi karaaba walaalashada dadka dibadda joogaa waxaa la dhahay qof markuu cuno ka halaabo ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo waxay dhihayiin baa la dhahay soomaalida ani keli maxaa laii ceebayne war orod hebla wiilkeeda beerta geli asagana sifa aan isku wada mid u noqono marka sheekadii ama hadda kenya imaatayba naagihii gabadhii jilas ka noqdeen so they want to spoil this girl magaceeda iyo wixii ay heshay iyo waxaas iyo marka walaalashada bal halis ilaali waxaasan soo maqloon yaabeen la ما شاء الله تبارك الله horta waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya hooyooyinka
nairobi ee maaragta meeshaa fadhiyey ee gabadhaas seef gareeyey ilaahay baa horta usoo diray gabadhaas waxaa badbaadiyana ilaahayna kuwan jimir buu uga soo dhigay laakiin iyada ayaa waxay ahayd qof daacada iyadaa waxay ahayd qof aan xasadnimo ku jirin oo cuqdad iyo inay gabdhaha saaxiibadeeda ay shirqooli karaan ama xasti karaan aan aaminsanayn taasaa horta badbaadisay ilaahayna shimbir buu usoo diray islaamahaasna waxaan leeyahay ilaahay hayna barakeeyo hadday ahaan lahayd maraykan inta saa loo fiiriyaa la dhihi lahaa maxaa naga galay sheegideedana maxaa aniga dacwo iyo maa arkaysa iyo iisoo arkay war wix lagu sameynaa lagu sameeya hooyadeedba soo fasaxday saasaa la dhihi lahaa xaqiiqda jirta qurbaha sidaas waay ma la caawiyeen sida hooyooyinkaasu gabadhaas ay u seef gareeyeen looma seef gareeyeen wayna dhacdaa sababta waxaan aragnaa oo indhaha saaraa dhalinyaro mid intuu cabsan yahay ama xoogaa daroogaysan yahay inta kaamira laga qaado meelaha lasoo dhigayo kuwo iyagoo la wareysanayo inta qofka wareysanayo isqariyo haddana banaanka lasoo dhigayo waxaasaan aragnaa waxaasna waxay ka mid tahay in xumaanta qofka maaragtay moralkiisa isaga la bahdilo marka ma samayn lahayn horta islaamaha qurbaha jooga wallahi inay samayn lahayn anigu waan hubaa kitaab baan ku maraya inay samayn lahayn laakiin ay farxi lahaayeen hadhowna ay ku sheekaysan lahayn dhihi lahayn maaragta tii gabadheedi maaragta marka waxa weeye wanaagga horta waa cajiib waaye qofku inuu wanaag ka shaqeeyo loo baahan yahay marka dhalinyaro gabar iyo wiilba waxaan ku leeyahay meesha aad tegayso waad aragtaan wiilasha nafkooda waa dhici kartaa in wiil wax bartay jalas laga noqdo ama gabar intay jeclaato gabadhaas ay ku xumaynayso oo shirqool ay u samayso meesha lagu dilo isagoo waxaas ka socon inta la kaxeeyo la dhaho meel baa aadaynaa meel aan weligii tegin oo gaangistayaal iyo qurun joogaan inta la geeyo lagu dilo hadhowna la dhaho meeshaas ku dhinto isagaa ka mid ahaa way dhacdaa oo shirqoolkay ka mid tahay jalasnimadaana keenta marka sida looga badbaadi karo dhalinyaro sida aada uga hortegi kartaan sida qofka jalaska lagu garto waxaas dhan haddaa rabtaan gadaal baan kasoo sheegayaa ma raba cajalku inuu dheeraado maadaama dadka ku xiran ay dhaheen cajalka waan dhegaysanaa ibliis aan ugu dheeraynin inagoo shaqo ku jiraan xataa dhegaysanaa marka ma rabno inuu dheeraado haddaad u baahantiin marka inaan qaybaha ka dhiman soo raaciyo oo more information ini siiyo idinka idinku xiran tahay like-tii sheerka saara commentiga soo qora waana ini salaamayaa waa walaashii nadiif qaran oo ini leh soo dhawaada barnaamijkuna waa barnaamijka wacyigelinta dhalinyarada ee nadiifa show marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu